barsaabka gobolka Gabiley maayarka degmada Gabiley xoogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley ururada haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gabiley ayaa soo dhaweyn diran ku qaabilay orodyaanka caanka ah ee Moy Farax oo socdaal ku yimid gobolka Waasalaan ka soo jeedo ee Gabiley orodyaankan haysta dhalashada Britain ee orda dalkaasi oo Soomaaliland ku sugnaa saacadii ugu dambeeyay ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay duleedka Bari ee magaalada Gabiley Arbacada maanta 1 Disembar Moy Farax ayaa markuu soo gaaray duleedka Bari ee magaalada Gabiley waxa uu mid salaan ka shiilaaba uga qaatay dadweynaha reer Gabiley ee isaga aawadi u istaagay hareeraha laamida si ay ugu muujiyaan inay u hayaan xurmeyn iyo ixtiraam oo kaga kasbaday dadaalada iyo horumarka uu ka sameeyay xirfadiisa orodyahan ugu horeyntii barsaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jeede ayaa si qalbi furan ugu soo dhaweeyay gobolka Gabiley orodyahanka caanka ah ee Moy Farax maayarka degmada barsaabka xigeenka odayaasha deegaanka dhamaantayo waxaan halka ku soo dhaweynaynaa orodyahanka caanka ah ee Moy Farax Moy waxaan kulay ku soo dhaw gobolka Gabiley gobolkaagi iyo dadkaagiba u timid oo ku soo dhaweynaa insha Allah taala soo dhaw wanaagsan ugu dambeyntii orodyahanka caanka ah ee Moy Farax ayaa bulshada reer Gabiley uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee kashiya laabta ah ee ay maanta ku qaabileen assalaamu calaykum waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliland meel kasta joogto waliba maanta si aan ku imtay magaalada Gabiley ku soo barbaaray waxaan salaamayaa Ameerika Maxamed Amiin barsaabka ku xigeenka xogayaha dhalinyarada sportiga Mustafa Diyaaro haweenka cid kasta oo meesha Gabiley joogto waan salaamayaa markii ugu horeysayna maaha aan imitay insha Allah waan imanayaa marka waxaan si la yaab leh sida Djibouti sida Gabiley u kacday soo hormarnay waa Jaafar Awil Hereri telefishinka sahan magaalada Gabiley